waxaa ilaahay mahadiis ah inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 22-ka bisha 3 2026 aan soo gaarnay magaalada Baydhabo ee xarunta dawladda Koonfur Galbeed sida aad la socotaan 17 Maarso anagoo xildhibaano gaaray ilaa 20 Meeyo ah ka soo baxnay magaalada Nairobi anagoo hawada soo galnay Soomaaliya ayaa dawladda federaalka amar ay bixisay oo madaxweyne Xasan Sheekh uu bixiyay yaana lagu celiyay magaalada la yiraahdo Nairobi aan ku noqonay marka sidaa daraadeed waxa ilaahay mahadiis ah maanta in aan Baydhabo ku soo nabad noqonay anagoo runtii dalka dhibaatada ka jirta aan ognahay oo runtii oo dhibaatadaasna ay tahay in xayiraad lagu soo rogay Koonfur Galbeed mas'uuliyiinteeda oo la yiri meel alla meeshay u safrayaan in laga joojiyo marka sidaa daraadeeda marka hore Ilaah baa mahad iska leh inaan Baydhabo ku soo noqono marka labaad waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed mudane Cabdiasiis Laftagareen oo runtii go'aan geesinimo qaatay go'aan Soomaali lagu badbaadinayo qaatay go'aan runtii taariikhi ah qaatay yaan u mahad celinayaa waxaan leeyahay madaxweyne go'aan Soomaali iyo dalka lagu badbaadinayo qaadatay runtii 3 sano ayaa waxyaabo khalad ah oo adiga aad arkaysay oo inay khalad yihiin aad arkaysay yaad u samreysay yaad in la iskhilaafo diiday sidaas ku ogolaanaysay marka Ilaah baa mahad iska leh inaad fahantay in oo wixii la waday khalad ahaayeen oo runtii go'aan Soomaali lagu badbaadinayo aad qaadatay tan kale madaxweyne Xasan Sheekh waxaan leeyahay madaxweyne 50 maalmood ama wax ka yara ku hartay ama wax hogo la jiraan adi 53 maalmood 50 marka 15 May ayaa waqtiga ku egyahay qofka markii uu manaha toobad keenayo waa waqti oo waxa la rabaa oo muddadii oo geeridiisa u dhow ka hor la rabaa inuu toobad keeno marka maadaama waqtiga dhamaaday dhibaato dalka u horseedin burbur dalka u horseedin Koonfur Galbeed waxay ka mid tahay maamul goboleedada waxay ka la mid tahay Puntland waxay la mid tahay Jubaland madaxweyne Cabdiasiis Laftagareen wuxuu la mid yahay madaxweyne Dani iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam runtii go'aamada ay hore u qaateen oo ahaa inay xiriirka u jireen dawladda federaalka ah markii ugu horeysay waxa ku dhawaaqay Puntland madaxweyne Saciid baa ku dhawaaqay lama weerarin looma goodinin xilkan ka qaaday lama dhihin haddana marka kale waxa go'aankaas oo kala qaatay oo xiriirka u jaray Jubaland madaxweyne Axmed Koonfur Galbeed maamuladaas ay lamid tahay isku xuquuq waay isku dastuur waay isku nidaam waay Koonfur Galbeed waa maamul jira dastuur ay leedahay sharci ay leedahay xeerar ay leedahay ma aha wax aad u yeerinaysid haddii madaxweyne Cabdiasiis 3 sano uu ka xishoonay isagoo markaas u arkayo inaan Koonfur Galbeed dhibaato ka dhicin ama dalka Soomaaliya dhibaato ka dhicin ama dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed iskoor imaan isagoo xeerinayo runtii dhibaatada dalka Soomaaliya hadda ka jirto in oo aysan ka sii darin kaaga xishooday kaaga wareegtay haddii Ilaahay soo hanuuniyay oo uu ka doobad keenay waxyaabihii khaladaadkii hore u dhacay oo uu Soomaali inuu badbaadiyo oo uu diyaar u soo noqday handadaad qof bani aadana laguma dhaqi karo waxyaabaha ugu daran ee aan la yaabay waxay tahay adigoo madaxweynihii dalka ah inaad
waxaan runtii aad ugu helay ninka la yiraahdo Abdulrahman Sanyare nin la yiraahdo saaxiibkay ah wuxuu yiri madaxweyne Abdiasiis wuxuu sameeyay wixii horey loo soo sameeyay buu yiri madaxweynayaashii Puntland iyo Jubbaland ay sameeyeen marka iyaga waxyaabihii ay sameeyeen koonfur galbeed hadii laga gudaayo waa dhibaato runtii annaga horey aan u aragnay horey baa loo soo arkay in marba shaati dawladeed loo soo gashado koonfur galbeed oo lagu baabi'iyo taas ma ogolaanayno horeyna waa u diinay haddana ma ogolaanayno waxaan kaloo la hadlayaa dhalinyarada reer koonfur galbeed ciidamada ah boqol laga soo qaadayo buurha kaba la keenayo baydhaba la idinku weerara la leeyahay kuwa inta joogo iyo kuwaas way wada dhasheen adigu iskuma diri kartid kaama ogolaanayaan anaguna kaama yeelayno in ilmaha annaga aad isku dirtid kaama yeelayno gobolada adiga aad ka soo jeedid wax dhibaato kama taagna laakiin gobolada inaad dhibaataysid kaama yeelayno annaga ayaa mas'uuliin u ah ma ka yeelayno madaxweyne tan kale koonfur galbeed xuquuq ay leedahay maamul ay leedahay dastuur ay leedahay dastuurkeeda ay ku dhaqmaysaa waxaan rabaa inaan anoo fursadan ka faa'iideysanayo golaha midnimada golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ugu baaqaya waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin markii uu hadlay madaxweyne Abdiasiis Xasan Maxamed Laftagareen aad baad u taageerteen waa soo dhaweyseen waa idin kaga mahad celinayaa laakiin taageeradiina yeysan noqonin tii ruushka oo waa idin la jirnaa kaliya ah oo afka ah yeysan noqonin waa inaad mustaqbalka Soomaaliya maanta badbaadada Soomaaliya maanta mustaqbalka Soomaaliya koonfur galbeed buu yaala sidii lagula dhaqmo koonfur galbeed ayay Soomaali noqonaysaa waqti baa la haystaa fursad baa la haystaa koonfur galbeed waa in la taageeraa garabkeeda la istaagaa mustaqbalka badbaadada Soomaaliya iyo badbaadada dalka Soomaaliyeed maanta koonfur galbeed ay agtaala garabkeeda istaaga runtii wax ka qabta runtii Xasan Sheekh waad aragteen markii xilka la wareegay Soomaali oo dhan oo la jirto reer gobolada waqooyi kaliya ka maqan yihiin yaa loo dhiibay haddana magaalada Muqdisho kaliya ku soo haray gobolada kale isaga ma xukumo faruhu ka bixiyay dadku isku diray maalin walba dad baa dhimana maalin walba dad isku dira hadda wuxuu keenay in boqol dad ka soo qaado buurha kaba keeno oo haddana yiraahdo baydhabo la dagaalama waa dad walaalo ah waa dad wada dhashay wiilasha oo laga soo qaadayo boqol oo lagu dhibaateynayo walaalahooda baydhabo joogo ka joogan idin leeyahay Xasan Sheekh waxba idin ma taraayo haddii uu run sheegayo runtii goboladan horumarka gaaray ayuu taageeri lahaa laakiin inuu dib u soo raro ha ka yeelina ha ka ogolaanina in walaalihiin idinku dilo ha yeelina isku diidasan lahaa eedasiin salaamay ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays balaas xawaare sare iyo internet tayadiisa la hubo ku shubo $17 iyo bar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah waxaa intaas ku dheer adeega Nashaad IPTV oo aad ka maqsuudi doonto uga shuba ii dahab kood nambarka xidig hal eber hal 4 gees